waxay noo tahay farxad inaan kala soo qayb galno furitaankan maanta aan furayno waxay noo tahay runtii wax aad iyo aad u weyn oo taariikhi ah taasoo ka turjumaysa Djibouti inay u diyaar garowday tartanka caalamka khaasatan economic integration ka aan ka hadlayno oo geeska Africa ama East Africa waxa weeye waa waxa kaliya oo aan isleeyahay keeni kara nabad iyo barwaaqo iyo deganaansho xasilooni siyaasadeed waxay tahay inuu dhaqaalaha isdhex galo oo uu dhaco economic integration maantaan aan joogno ma aha waxaan arkayno wax accident ah wax shil ah ma aha waa wax galay waqti badan iyo shaqo badan iyo vision iyo hoggaan wanaagsan oo walaalkeen Ismaaciil Cumar Geele ah taas oo iyadana ku timid wada shaqayn guud ahaan dadka reer Djibouti oo hoggaankooda wanaagsan si maaragtay u daba socda oo ula shaqeeya waxaan arkaynaa in ummadda reer Djibouti ay diyaar u tahay horumarka dhaqaale oo kulligeena ku taaminayno inay ka dhacdo geesta Afrika